السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كيني محي كل طهي عنتر بن الشداد بوباكت التاريخ وحي شيغيسا إنو أها نين مدو أو نولا زمن كي جاهلية نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت جيسا كهر نينكاس أبي وحوها نين نسبله أو شرف لقبيل كيسا أو سلطان كمدا سلاطين تا قبيل كيسا أيو أها أبيه wuxuu guursaday gabadh xabashiyada oo jaariyada inan bay u dhashay inankii wuxuu bixiyay cantara laakiin wuu dafiray wuu diiday inuu sheegto inuu inankiisii yahay. marka isagana addoon buu ka dhigay wuxuu ka shaqayn jiray inuu ariga liso oo sariibada ariga inuu nadiifiyo iyo inuu waxyaabahan kale cabiidku ay qabtaan ayuu qaban jiray. laakiin cantara markuu dhameeyay shaqada dulliga badan ee hayaanada badan ee biyuu ku gumaysan jiray ayaa intuu baxo ayuu wuxuu baran jiray waxay dhalinyaradu waqtiga ay bartaan. cilmi kasta oo dhalinyaradu ay bartaan wuu baran jiray, hadday tahay sida seefta loogu dagaalamo, hadday tahay sida waranka loo tuuro, hadday tahay mahmaahyada carabtu ay odhan jireen waqtigaas, hadday tahay gabayada sida loo tiriyo iyo gabayga sida loo akhriyo. wuxuu isku dayi jiray inuu la tartamo dadka xorta ah xorriyadda ay haystaan ayuu kula tartami jiray. waqtigu dagaalku imaadana wuxuu ahaan jiray askariga taagan safka ugu horeysa, wuu dagaalami jiray, nin geesiyana wuu ahaa oo cid walba uu ka badin jiray. kamuna baqi jirin dagaalka isagoo garanaynaana loogu talagelin dagaalka, sababtu waxa weeyaan addoonka shaqadiisu waa ariga iyo inuu u shaqeeyo sayidkiisa. marka lagu guulaysto dagaalkaasna ay ciidankii ay ka cararaan waxay haysteen, hadday noqoto adhi ama hub ee ciidanka kale ay iman jireen qaybsan jireen, isagoo ka kibri jiray inuu waxa laga tago inuu qaybsado. wuxuu odhan jiray aniga nin sultaana baa i dhalay, nin nasab laban ahay, waxa laga tago hadday noqoto cunto ama hub ama adhi ma qaybsanayo. hadhowtana waxa imi markuu weynaaday ayaa wuxuu jeclaaday inaadeertii oo la odhan jiray cabla. taasba hamigiisa koobaad nolosha ka dhigtay inuu xorriyaddiisa uu helo. sababti waxa weeyaan nin cabd ah ama addoon ah siduu u guursan karaa ama u jeclaan karaa gabadh xor ah. aabbihii buu u tegey, wuxuu ku idhi ictiraaf oo isheego inaan inankaaga ahay, xorriyaddeydana isii. aabbihii baa uu diiday, waana ku xanaaqay oo wuu dafiray. wuxuu ku idhi adigu addoon baa tahay, shaqadaaduna waxa weeyaan ariga inaad listid iyo sariibadda inaad ka shaqaysid iyo inaad sida waxa kale qabtaan cabiidka kale inaad qabatid. maalin ka mida maalmaha ayaa qabiil la yidhaaho tay ayaa weerar ku qaaday qabiilka cantara oo la odhan jiray cabs. wuxuu ahaa dagaal aad u xanuun kulul oo aad u adag, ciidan badan baa ku dhintay. dadkii oo dhan indhahoodu waxay baadhayeen cantara meeyey ayaa la lahaa, ninkii geesigahay meeyey. aabbihiiba wuu cararay markuu arkay inaan la rogmanayo oo dad badan ay dhinteen, uu arkay inaan lagu guulaysanayn dagaalkan ayuu cararo inankiisiibuu baadhay. wuxuu arkay isagoo sariibadda dhex fadhiya adhigii. wuxuu ku idhi soo kac, soo qaado hubkaaga, kaalay dagaalan. wuxuu ku idhi maad ilowday sayidkaygow inaan ahay cabd, inaan addoon ahay. addoonkuna dagaalna ma garanayo, hubna ma qaadi karo. addoonka ama cabdiga waxaa loogu talagalay inuu sariibadda joogo, adhigana liso. aabbihii baa wuu fahmay ujeeddadiisii wuxuu doonayo. wuxuu ku idhi kac, dagaalan, hubkaaga qaado, maanta waxa laga bilaabana xor baa tahay. maalintaa xorriyaddiisa uu helay cantara waxa ahayd maalintii dhabta ahayd uu dhashay, ama dhalashadiisa dhabta ahayd waxayd maalintaas uu xorriyaddiisa u helay. cantara wuxuu ku dhashay duruuf aad u xanuun kulul oo aad u dhib badan. cantara addoon buu ahaa oo weliba wuxuu garanayay aabbihii qofku yahay. aabbihii waa sayid ka mida ama waa nin sharaf leh oo sayida oo sultaana qabiilkiisa. aabbihii waa nin cisleh oo sharaf leh oo la garanayo, haddana aabbihii wuu gumaystay oo wuu dafiray inuu inankiisii yahay. taa baxaa ka xanuun kulul, laakiin taasu may jabin. waaqax xanuun kulul ayuu ku noolaa, muu ashtakoon, manuu ooyin, cidlana muu fadhiisan. kollayba xanuun badan iyo cadho badan baa qalbigiisa ku jiray. u diidi jiray habeenada inuu seexdo ama hurdada u diidi jiray. kollayba wuxuu dareemi jiray inaan adduunkan cadaalad aanay jirin, dulmi badanna wuu dareemi jiray. laakiin
wuxuu go'aansaday isagoo waaqiciisa aaminsan oo garanaya inuu waaqiciisu tan ay tahay, haddana isumuu dhiibin waaqicaas. wuxuu go'aansaday inuu xanuunkan iyo dhibtan ka kaco. Cantara wuxuu sameeyey, wuxuu baadhay hibadu Ilaahay siiyey iyo awooddu Ilaahay siiyey iyo wuxuu kari karo. markaasuu uu kacay, waxbuu bartay, awoodiha Ilaahay uu siiyey, hibadu Ilaahay siiyey ayuu koriyey, uu weynaysiiyey. waxaanuu ilaaliyey maskaxdiisa in la gumaysto. haddaa jidhkiisii la gumaystay oo addoon laga dhigay, caqligiisa addoon lagama dhigi karo. caqligiisa wuxuu ka ilaaliyey in la gumaysto. hadalka xun ee dadku ku leeyin ayuu ilaaliyey caqligiisa inuu dhaawaco. wuxuu ka ilaaliyey caqligiisa duruuftan adag inay saameynaya raad caqligiisa kaga tagto. qalbigiisa ayuu ilaaliyey, uu ka ilaaliyey inuu jabo. wuxuu aaminay inuu xor yahay. maalintii uu fursadda uu helay, fursaddiina wuu ka faa'iiday oo wuu kacay oo wuxuu yidhi waan u qalma inaan xor ahay, xorriyaddiisana wuu qaatay. waxaa la idhaahaa marka noloshaada duruufta xumaato ay adkaato, qalbigaaga ilaali. qalbigaaga ilaali inuu jabo, ka ilaali inuu jabo, ka ilaali inuu damqado, ka ilaali inay dadku qalbigaaga ku istaagaan oo ay ku gumaystaan. waaqicad ku nooshay, duruufta adagaad ku nooshay, kagama bixi kartid riyo iyo rajo aad rajaynaysid inaad kaga baxdid. waxaad kaga baxaysaa inaad dhexda xulatid oo aad istaagtid oo aad diidid oo aad isku daydid inaad wax noqotid, iyadoo dadkoo dhan ay doonayaan aanad waxba noqon. nin layidhaahaa Arrifaaci oo Abwaan ayaa wuxuu idhi, jeelalka adduunka ugu xanuunka kulul ugu xum waxa weeyaan maskaxdaada inay gasho fikir aad aamintid oo aad u xum oo maskaxdaada gumaysta. inaad aamintid inaanad kari karin, inaad aamintid inaad duruuftu kaa soo horjeedo, inaad aamintid inay dadkoo dhan ay dagaal kugula jiraan, inaad aamintid inay lacag la'aan aan waxba la qaban karin, inaad aamintid inaad xurxuran tahay oo aanad dhaqaaqi karin. waa dhab, duruuftu way adkaan kartaa. laga yaabo inaad mashaakil leedahay, laga yaabo waalidkaagu inaanay ku fahmayn, laga yaabo inaad qoys danyar aad ka dhalatay, laga yaabo inaad nin xum ama gabadh xum aad guursato saameyn noloshaada ku yeeshay. laakiin waa dhab, waa caqabad. laakiin ha ka dhigin fikrad ama ha aaminin inaanad duruuftan aanad ka bixi karin. noloshu waa one way, two way maaha. saacadda tagtaana ma soo noqoto, cumriga iyo noloshuna ma istaagto oo way socotaa. markaas maskaxdaada ka saar ma kari karo. maskaxdaada ka saar fikirkan ku gumaysanaya ama ee kugu leh dib u noqo ee noloshaada xurxuraya. waxaad aamintaa inaad kari kartid oo duruuf kasta siday u adkaato ama u xumaato ama u xanuun kululaato inaad ka bixi kartid. idinkana maxay idinla tahay? ma noqon karnaa sida Cantara bin Shadaad oo duruufta adag ayna haysata ma ka bixi karnaa? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.